wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Jumhuriyadda Djibouti Ali Xasan Bahdoon waxa uu kulan qada sharaf u sameeyay wariyaasha iyo mas'uuliyiinta warbaahinta Soomaalida iyo kuwa dawladda Djibouti ka qayb qaadanayay doorashooyinkii madaxtinimada ee Jumhuriyadda Djibouti ee ku guuleystay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. kulanka qadadii waxa uu ka dhacay Hotel Sheraton oo ku yaala magaalada Djibouti waxaana halkaasi la isku weydaarsaday sida doorashadaasi u dhacday. qaar ka mid ah wariyaasha TV-yada Soomaalida oo halkaasi ka hadlay waxay sheegeen una mahad celiyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo xukuumadda madaxweyne Geele sidii firfircooneed ay saxaafadda u casuuntay doorashooyinka Jumhuriyadda Djibouti waxaana yiraahdeen maanta munaasabadan qiimaha badan ee aan soo nimid annaga oo saxafiyiin kala duwan oo waliba la isku jeeda ah doona wada saaran waxay tahay marka koowaad horta inaan mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Cumar Geele oo isaga la fahantiisa ka leenahay hambalyo guusha sida weyn shacabka Jamhuuriyadda Djibouti ay mar kale ugu doorteen inuu hogaamiyo wadankan si horumarkii halkii uga sii socdo. marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeynaa shacabka reer Djibouti oo iyagu codkoodii ay doonayeen qofkii ay doonayeen siiyay. marka hadduu shacbigu guuleysto ummadda inteeda kale way guuleysatay. marka number 1 waxaan u hambalyeeynaa marka arrimihii doorashada aan ku fargarin inaan ka hadlo shacbiga reer Djibouti. mar labaad waxaan u hambalyeeynaa isbahaysigii MB iyaguna guusha gaaray. mar saddexaad waxaan u hambalyeeynaa musharaxii MB mudane Ismaaciil Cumar Geele oo isna guuleystay. marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd iyo wasiirka annaga noo gaarka ah oo ah wasiir Ali Xasan Bahdoon oo imaka halkan fadhiya la'aantii isaga iyo howlwadeennadiisuna aanay runtii suura gasheen shaqadii weyneyd ee ay qabatay saxaafadda madaxa banaani. musharaxa xisbiga EMP mudan Ismaaciil Cumar Geele guushii taariikhiga ahayd ee uu ka gaaray doorashada Jamhuuriyadda Djibouti oo shacbiga Djibouti ay ka dhabeeyeen ballanqaadkii ahaa inay rabaan horumarka dalka socdo inuu sii socdo. waxaan u soo kacay horta inaan maanta mahad weyn u celino ilaahay oo si fiican nagu soo dhameeyay ololihii doorashada taas oo socotay maxay ahayd muddo 2 toddobaad kadib waxaa mahad iskale madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo oridiisa Khadra Maxamuud Xayd. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa martidan sharafta leh qaaliga oo ugu horeeyay wasiirka warfaafinta Ali Xasan Bahdoon mahad iyo bogaadin waxaan u dirayaa ilaahay marka ugu horeysa marka labaadna madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. isna kulankaasi waxa ka hadlay maariyaha guud ee TV-ga idaacadda Djibouti waxaanu yiri horta waxaan mahadnaq gaar aan u gudbinaynaa wasiirkayga warfaafinta mudane Ali Xasan Bahdoon oo maanta xaflad wanaagsan noo sameeyay. waxaan leenahay haddaan nahay bahadii idaacadda Djibouti aad baan ugu riyaaqnay inaan ka qayb galno sharaf bay noo tahay waxaana ka marakacaysaa isku duubnida iyo kalgacaylka saxaafadda guud ahaanba dalkeena. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Djibouti Ali Xasan Bahdoon oo gabagabadii kulanka qadada maanta uu sameeyay wariyaasha iyo saxaafadda ka qayb gashay doorashooyinkii Jumhuriyadda Djibouti isku jirtay kuwa Soomaalida iyo kuwa dawladda Djibouti ayaa waxa uu sheegay inuu mahad celiyay saxaafadda kaalinta ka qayb qaateen doorashooyinka Djibouti. isagoo ka hadlaya doorashooyinkaasi iyo arrimo kale ayaa wasiirku waxa yiri waxaan horta jeclay inaan hambalyeeyo aan ka qayb qaato hambalida la gaarsiinaya ku socota ummadda Djibouti ee sida qurux badan uga soo qayb gashay doorashooyinkan ee muujisay kartida iyo khibradda ay u leedahay doorashooyinka iyo dimuqraasiyadda. waxaan kaloo hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ee sida qurux badan ugu soo baxay codeysigaas iyo marwada koobaad. waxaan leeyahay hawshani lama arkin amba lama dhadhamsadeen haddii ay jirin saxaafad madax bannaan. waxaad turjumteen haddaad tihiin saxafiyiintii joogtay doorashooyinkan ka soo qayb gashay kuwii qaran kuwii degmo iyo kuwii adduunba amba caalamka waxaad tihiin markhaatigii horumarka dimuqraasiyadda iyo nidaamka ka taagan ka jira Jamhuuriyadda Djibouti.
waa tusteen waa muujiseen waxaan leeyahay hambalyo hawl qurux ma qabsan marka inaan ninkan hambalyo yaan jeclaaday hambalyo kulli adduunka cid wax ku barta ma weydid cid macallin ku noqoto ma weydid ku macallin runa ugu jira kuwa macallin sheegayna iska jiraan waxaan leeyahay kuwa macallimiinta sheeganaya expression limited expression ba ikhtiyaarka hadalka annaka baan naqaana annaka dadka adduunka barna waxaan tahay degmada inay jiraan saxaafado madax bannaan oo mas'uul ah oo wixii jira sheegaya wanaag iyo xumaan wixii jira sheegaya siduu sheegaya oo baahneen in cashar loo dhigo oo maanta iyagu cashar dhigi karayaba waxaan doonayaa habada ku daro dadkii kale ee af Soomaali ku shaqeynin ee ay kamid ahaayeen jaraydada ka yimid Africa Europe iyo adduunka kale kulley waxaa tiin ragii xogaalkee rag yaroon sajinoodo geedin wixii meesha dhacay ragaas inay ka baxeen shaqadii la iskuuga ay arrimo kala galeen yaan doon waxaan ka sheego oo ahayd arrin aan ku saabsanayn aan badal ku lahayn doorashooyinkii ay soo qorteen ay yimaadeen dawrihu waa qof qowl ku shaqeynaya marka qowlku muhiim waxay soo ballameen ay soo qoreen inay ka hadlaan arrinta doorashooyinka arrimo kala galeen marka inaan yar joogsada yaa meesha tiilay inaan taana cadeeyaan jeclaa maanta erey baa jira mooyn Soomaaliya ku tahay deontology mas'uuliyadda qofka wax sheegaya suu sheegayo inuu isagu maskaxdiisa iyo garaadkiisa iyo cilmigiisa ku socdo wixii runa sheego ayaa meesha taala taan waa muujiseen waad soo saarteen casharad urugtan kuwii waxna barayay waxaan leeyahay hambalyo xamse cali bulbul Hon Cable TV Djibouti